ummad waliba waxay leedahay halyeeyo sidii ay ahayd u soo gutay adeegii ay u qabanayeen dalkooda iyo dadkooda kuwaasoo ka tallaabsaday caqabado fara badan oo soo waajahay marka aynu dadka noocaasa ka hadlaynana waxaynu soo qaadan karnaa mahaatiir maxamed ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Malaysia oo ahaa xidigii sida dayaxa uga muuqday taariikhda cusub ee waddankaasi isagoo karti u yeeshay ilaahayna la qabtay inuu Malaysia oo ahayd waddan faqiir ah oo dib u dhacay uu u bedelo saaxad dhaqaale oo caalamiya mahaatiir maxamed waxa uu suuro gashay inuu isbeddel ku sameeyo muuqaalkii Malaysia una soo saaro dunida dhaqaale ahaan horumartay iyadoo ilaa maantana fikraddii isbeddelka dhaqaalaha ee mahaatiir maxamed ka sameeyey waddankiisa ay tahay astaan ay ku daydaan dhammaan dalalka soo koreeya sanadkii 1925 ayuu mahaatiir maxamed ku dhashay gobolka Kedah ee dalka Malaysia waana inankii u yaraa 9 carruur ah oo waalidkii dhalay iyadoo aabihii ahaa Maxamed Iskandar oo asalkiisa ka soo jeeday dadka Hindida ah ee waddanka halka hooyadiina Wan Tambal oo ahayd haweeney ka soo jeeda dadka Malayga aabihii waxa uu ahaa macallin wax ka dhiga iskuulaadka hoose nasiib xumana dhaqaalahan uma suuro gelin inuu xaqiijiyo riyadii inankiisa mahaatiir ee ahayd inuu helo baaskeel uu iskuulka ku tago xilligii uu socday dagaalweynihii labaad ee dunida oo ahayd markii ay ciidamada Jabaan ku qabsadeen dalka Malaysia mahaatiir oo xilligaa da ahaan qaan gaaray waxa uu wadooyinka wareejin jiray oo ku iibin jiray muuska iyo waxyaabaha yaryar ee la dubo si uu uga soo saaro biilka maalinlaha ee qoyskooda tacliinta sare waxa uu ka bilaabay kulliyadda Cabdixamiid ee waddankiisa kadibna waxa uu ku wareegay oo cilmiga caafimaadka ka bartay kulliyadda Malay ee dalka Singapore oo xilligaa loo yaqaanay kulliyadda Boqor Edward ee 7aad sidoo kale waxa uu xiriirka caalamiga ah ka bartay jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka oo uu ka qalan jibiyey sanadkii 1967 intaa kadibna waxa uu ku shaqayn jiray xarun caafimaad oo gaar u leeyahay taas oo si bilaash ugu daweyn jiray dadka faqiirka mahaatiir maxamed waxa uu si weyn caan ugu noqday sida uu ahmiyadda u siin jiray siyaasadihiisii iyo aragtiyihiisii isagoo bilowgiiba ku biiray ururkii midnimada Malaysia oo uu muddo ku jiray ilaa uu ka noqday xubin ka tirsan golaha sare ee ururkaasi wadaniga ee Malaysia dhanka dalka Malaysia haddaynu eegno wixii ka horreeyay hogaamintiisii waxa uu dalku ahaa mid ay dadkiisa badankiisu iskaga nool yihiin dhulka tuulooyinka iyo kaymaha dhexdooda dakhliga celcelis ahaan qofkii soo galaana uu sanadkii ahaan jiray qiyaastii $1 iyadoo inta badan qoysaska waddankaasi ay la tabaalaysnaayeen saboolnimo baasan sidoo kalena ay jireen isku horimaado diimeed xilli ay dadka waddankaasi rumaysan yihiin ilaa 18 caqiido oo kala duwan halkaana ay ku wada nool yihiin qowmiyado asalkoodu kala duwan yahay sida qowmiyadaha Malayga Hindida Shiinayska iyo kuwa kale ee lagaga tira badan yahay waddankaasi saaxadda siyaasadeed ee mahaatiir maxamed waxay bilaabatay sanadkii 1970 xilligaa oo uu qoray buuggii ugu magacdaray wanaaggii Malaysia kaasoo qaybo ka mid ah uu ku dhaliilay dadka waddankaasi isagoo ku sifeeyey inay yihiin kuwo caajis badan uguna baaqay inay isu taagaan ka qayb qaadashada kacaan warshadeed oo wada gaadha Malaysia kana saara liiska dalalka dib u dhac u haysto ee ku tiirsan wax soo saarka beeraha yaryar isagoo xilligaa xubin ka ahaa xisbigii talada hayay laakiin xisbigiisii ayaa isku dayay in la joojiyo faafinta buuggaasi iyagoo ka warwarsanaa fikradaha isbeddel ee ku baaqayay waxaana hogaamiyaashii xisbigu xilligaa mahaatiir u arkayeen nin dhalinyaro ah oo ka soo horjeestay fikradihii xisbiga lama huraanna ay tahay in laga digtoonaado khatarta ka iman karta waxyaabaha uu alifeeyo laakiin taa beddelkeeda mahaatiir marnaba kama cadhoon hoggaanka xisbiga mana qaadan go'aan uu kaga baxayo xisbiga laakiin wadahadallo uu la galay dartood waxa ugu dambayntii hoggaankii xisbiga ku qanciyey aragtiyihiisii siyaasadeed ee heer qaran intaa kadibna waxa uu noqday xidigga siyaasadeed ee waddankaasi ilaa uu ugu dambayntii qabtay jagada ra'iisul wasaaraha sanadkii 1981 mahaatiir maxamed oo si weyn loogu yaqaanay gacan ku haynta iyo kasbashada kaadiriinta xisbigiisa ayaa taasi waxay keentay inuu xilka ra'iisul wasaarenimo hayo muddo 22 sannadood waxaana xilligaa dheer u saamaxay inuu hirgeliyo hamigiisii ku saabsanaa inuu Malaysia ka dhigo waddan aan ku tiirsanayn oo kaliya wax soo saarka beeraha laakiin noqda dal ay hannaanka warshadaha iyo adeegyada 90% ka noqdaan wax soo saarka gudaha ee sanadlaha iyadoo natiijadii ka dhalatay isbeddelkaasi ay keentay in tirada dadka saboolka ah ee waddankaasi oo ahaan jiray 52% ay sanadkii 2002 noqdeen wax ka yar 5% oo keliya halka sidoo kalena dakhligii qof ahaaneed ee sanadkii ahaan jiray $1,000
uu sanadkii 2002 soo gaadhay ilaa 9,000 oo dollar qofkiiba, shaqala-aantiina ay hoos ugu dhacday boqolkiiba 3 oo keliya. tallaabooyinkii siyaasadeed ee Mahathir u adeegsaday ka dhabaynta riyadiisu waxay keentay in Maleesiya loo aqoonsado dalka ugu wanaagsan dhanka maalgashiga marka loo eego mandaqada koonfurta qaaradda Aasiya oo ay ka mid tahay, sida ay caddeeyeen daraasadihii ay xilligaas soo saareen Baanka Adduunku. Mahathir Mohamed markii uu hoggaanka dalkiisa qabtay waxa uu sawiray khariidadda mustaqbalka ee Maleesiya, taasoo uu ku qeexay sida loo kala hormarinayo ujeedooyinka la tiigsanayo iyo natiijooyinka laga doonayo, waxaana uu go'aamiyey in horumarinta tacliinta iyo baadhista cilmigu noqdaan kuwa ugu horreeya qorshihiisa, isagoo xaddi badan oo miisaaniyadda dalka ka mid ahna u qoondeeyey tababarada xirfadyahanada iyo hagaajinta tarbiyadda iyo tacliinta guud oo ay soo raacaan la dagaalanka akhris qoris la'aanta, barashada luqadaha caalamiga ah iyo baadhista culunta, waxaana kumanaan arday loo kala diray jaamacado waaweyn oo ku yaala dalka dibaddiisa. xilligaa Mahathir Mohamed waxa uu shacabka u bandhigay qorshayaashiisa siyaasadeed oo uu sees uga dhigay hannaanka isla xisaabtanka oo leh abaalmarin iyo ciqaab labadaba si loo gaadho isbeddel dhaba. shacabka reer Maleesiya ayaa si weyn taageero ugu muujiyey oo ku daba faylay, waxayna ku dhaqaaqeen horumarinta wax soo saarka beeraha, iyagoo 2 sano ee u horreeyey xukunkii Mahathir la beeray 1 milyan oo geedaha saliidda qumbaha laga miiraa, sidaana ay Maleesiya ku noqotay dalalka soo saara ee dhoofiya saliidda qumbaha ee ugu badan. intaa kadibna waxaa isbeddel lagu sameeyey dalxiiska dalkaasi, iyadoo xeryihii ciidamada Jabaanka ee dagaalkii labaad ee dunida loo bedelay xarumo iyo goobo dalxiis oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyadii lagama maarmaanka u ahaa sida goobihii dhaqanka, kuwii fanka iyo kuwii ciyaaraha, waxaana Maleesiya noqotay dalalka lagu qabto tartanada caalamiga ee baabuurta, fardaha iyo dabaasha. tallaabadii isbeddel ee dhanka dalxiiska lagu sameeyey waxay suuragelisay in dakhliga dalxiisku ka soo bixi jiray oo sanadkii dhammaa 900 milyan oo dollar uu si weyn kor ugu kaco muddada 20 sannadood ah, isla markaana gaadho ilaa 30 bilyan oo dollar sanadkiiba. Mahathir waxa uu dalkiisa ku sameeyey jaamacadda ugu weyn jaamacadaha culumta islaamiga lagu barto, taasoo ka mid noqotay boqolaalka jaamacadood ee ugu horreeya dunida, waxaana uu yegleelay caasimad cusub oo maamulka dowladdu degaan, taasoo laga dhinac dhisay caasimadda ganacsiga. muddadii u dhaxaysay 1981 ilaa 2003 Mahathir Mohamed waxa uu suuro gashay inuu dalkiisa ka soo qaado oo ka soo saaro qaaba qawsayni oo adna, isla markaana uu keeno halka ugu sarreysa ilaa ay kaalinta koowaad ka gashay waddamada isbeddelka horumarineed sameeyey, isagoo aan kursigana sii jeclaysan ilaa maalintii u dambeysay, ama aan ku fikirin inay dhaxlaan inamadiisu. dhanka siyaasadda caalamiga ee Mahathir Mohamed waxaa mowqifyadiisa qaarkood muran ballaaran ka dhaliyeen dunida reer galbeedka gudaheeda, gaar ahaan khudbaddii uu ka jeediyey shirweynihii dalalka islaamka ee ku saabsanaa yuhuudda, kaas oo uu Mahathir ka sheegay in yuhuuddu daaha dabadiisa ka xukunto adduunka, ciddii aan iyaga ahaynna ay geeri la doonayaan, iyagoo cid kale u wakiilanaya fulinta hawshaasi. xilligaa oo waddamada waaweyn ee reer galbeedku ay ka dalbadeen Mahathir Mohamed inuu raaligelin ka bixiyo hadalkaasi, inkastoo aanu dhegaha u raaricin. sanadkii 2003 Mahathir Mohamed waxa uu go'aansaday inuu dhammeeyo socdaalkiisii siyaasadeed iyo kii isbeddel ee uu waday, waxaana uu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay xilkiisa maadaama buu yidhi ay xilliga Maleesiya u baahan tahay hoggaamin cusub oo fikrad cusub wata, isagoo ciddii bedeshana uga tegay qorshihii heysiga ee uu bixiyey 2020, kaasoo loogu talagalay inay Maleesiya sanadka 2020 noqoto dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Aasiya marka laga reebo waddamada Shiinaha, Jabaan iyo Hindiya.